بسم الله. halkan waxaan ku duubaynaa caawa cashir ku saabsan ciwaankiisa la yidhaahdo solving proportion ama xalinta masalooyinka saamiga. Saamigan labada ratio waa laba saami markay isleeg yihiin waa proportion, waa laba saami oo isleeg. Sideebaa marka cashirkan waxaan ku baranaynaa sida tusaalaha aan ku arki doono haddii labada saami mid uu maqan yahay ratioha labada ratio labada number ee koreeyaha iyo hooseeyaha mid baa kaa maqan sideebaad ku xallin kadhaa marka. Waxaan ka bilaabaynaa tusaalaheena baan ka bilaabaynaa oo na leeyahay waa xallin kadhaa adoo isticmaalaya cross productiga hadda aan ku shaqaynayna cashirkii kale. Cashirkaana waa cashirka saddexaad solving proportion. Mathalan waxaan haysanaa tusaalaheena koowaad examplekeena koowaad example 1 keena waxaana la siiyey 6 loo qaybshay number aan la garanayn ma unknown waa kaas inta ma naqaano wuxuuse la mid yahay oo la barbareeyahay 3 loo qaybshay 12. marka waxaa masaladeena aan qaadanaynaa sidee baan ku heli karnaa qiimaha halkan geli kara inta. Waxaan isugu dhufanaynaa sidii hadda aan soo baranay cross multiplication 6 loo qaybshay n iyo 3 loo qaybshay 12. marka cross aan isugu dhufanaynaa marka waxaan leenahay oo noo soo baxaya 3 iyo na'da marka isku dhaxaan waxay noqonayaan 3n saasaan u qoraynaa. waxay la mid tahay 6 lagu dhuftay 12. maxaa noo soo baxaya marka waxaa noo soo baxaya 3 n ma garanayno waase ku dhufasho saasaa loo qoraa 3n macnaheedu waa 3 lagu dhuftay na ama n. halkan waxaa noo soo baxaya markaan 12 ku dhufanay 6 waxaa helaynaa 72. marka waa 72. sidee baan ku heli karnaa marka n waxaan ku helaynaa anoo dhinac walba u qaybino 3. halkan 3 haddaan u qaybino waxay la egtaa 72 loo qaybsho 3 waa isla maadaama maxaan ugu qaybinaynaa 3 dhinac walba waxaan diidaynaa inuu naga lumo isla ekaanshihii labada dhinac. marka 3 u qaybi n keliya halka igu soo haraysa. halkaa maxaa igu soo haraya waxaan u qaybinaya 72 ayaa waxaan u qaybinaya 3 hal baan u saarayaa meel labaan u saaraya marka hore waa 6 maxaa ii soo haraya 1 labadii soo deji 4 marka 24 ayay noqotay. marka saamigeygii waxaan ku sameynayaa jeegareen qubin baan ku sameynayaa waxaa la yiri 6 loo qaybshay n waxay la mid tahay 3 loo qaybshay 12. haddii marka aan ku bedelo n waxay noqonaysaa 6 loo qaybshay 24. 6 loo qaybshay 24 ma la eg tahay 3 loo qaybshay 12. waxaan isugu dhufanaynaa cross multiplication. haddaan cross multiplication isugu dhufano oo masaladu ay sax noqoto marka waan saxana. waxaan leenahay 24 lagu dhuftay 3 ma la eg tahay masaladeena 6 lagu dhuftay 12. waa isku dhufanaynaa marka 24 ku dhufo 3 waa 12 hal baa wadataa waa 6 waa 72. horena waxaan u sameynaa 12 lagu dhuftay 6 waa 2 12 xabad wadataa 7. waxaa noo soo baxay 72 inay la eg tahay 72. marka waa sax intayna aan helnay waa sax oo n waa true inay la eg tahay 24.
tusaalahaasi waa tusaalaheena koowaad ee hadda aan ku shaqaynayno masaladeena. masaladana intaa ku baranaysaanba waa intaanba ad ku baranaysaan. Okay. Okay. waxaan samaynaynaa marka tusaalaheena labaad baan samaynaynaa exampleka labaad qaybta labaad. waxaa la siiyey su-aasha waxaa la siiyey hal iyo bar loo qaybshay 4 waxay la egtahay la yiri n loo qaybshay 8. kan kore ee hadda masaladeyda ka muuqda numberka ah waxaan rabaa inaan ka dhiga kalar aad arka ka dhiga nus kaas gudud baan ka dhigay. waxaan u bedeli karaa si sahlan waxaan dhigi karaa 1 iyo bar loo qaybshay 4 waxay la mid tahay n loo qaybshay 8. cross multiplication baa isugu dhufanaya marka waxaan leeyahay 4n waxay la mid tahay 1.5 lagu dhuftay 8. 4n waxay la mid tahay markaan labadan isku dhufto 1.8 aan ku dhufto 1.5 ku dhufto halkaani waa eber waa 40 4 baabato waa 12 dhibicdina halkaasaan geli marka waa 12. 4n markaan u qaybsho 4 dhinac walba n waxay ii noqonaysaa 3. marka waxaan hayaa oo masaladeyda ku soo koobaya maadaama intaydii aharay 1 iyo bar loo qaybshay 4 waxay la mid tahay 3 loo qaybshay 8. marka cross ugu dhufto waxaa ii soo baxaya 1 lagu dhuftay 1.5 lagu dhuftay 8 waxay la mid tahay 4 lagu dhuftay 3. halkan waa horaan u arka waa 12 halkanna waa 12. masaladeedu waa saxantaa marka casharkeena intaasu ku egyahay waxaana laga rabaa in aynu intaas homeworkan uu yaryahay aan ka shaqayno. su-aalahaasna way sahlan yihiin. waxaan raadinaynaa unknownka. n waa unknown waa waxaan la garanayn oo la raadinayo. marka casharka halkaasaan ku ekeenaynaa.